markii aad photoshopka ugu horeyn aad soo furto shaqada ugu horeysa aad qabanaysid waa document inaad soo furtaa 90%. okay yani waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad sawiro aad soo kicido oo ama nashqad hore kugu diyaarsan dib wax ugu bedesho laakiin sida caamka ah yani ugu badan document cusub ayaa la abuuraa si hawl cusub ama shaqo cusub loo sameeyo marka documentiga cusubna insha Allah qaabka loo sameeyo ayaan hadda isla galeynaa okay marka documentiga cusub 3 qaab waad soo furan kartaa qaabka ugu horeyso dhankan bidix intaan imaano create new meesha ku qorto ku dhufan karnaa oo daaqadaas ayaa noo soo bixayso waxaa kaloo sameyn karnaa menuska intaan tagno ayaan dhihi karnaa create yani file aan dhahe kabacdi new ayaad ku dhufan kartaa isla daaqadii ayaa kusoo bixi doonto waxaa kaloo sameyn kartaa shortcut ahaan ayaad adeegsan kartaa okay shortcut waa muhiim annagana 90% shortcut ayaad adeegsan doonaa insha Allah marka shortcut waa sidee marka hadii aad file soo dhahdo oo new-ga aad imaado adoo ku dhufanin dhankan hadii aad imaado yani new-ga dhinaciisaan midig waxaa ku qoran Ctrl+N okay waa shortcut-ka aad ku soo galaysid markii aad rabtid document cusub inaad sameysto si fudud okay hadii aan taabano Ctrl+N waad ujeedaa daaqadan ay noo soo baxayso okay marka qaybta safetka waa qaybtan resinka waxaan dhahnay wixii aad horay aad u keydsatay yani aad fileska aad horay usoo furatay ayaa ku imaan doona anaga wax file ma furin wali baalku waa cusub yahay hadda ayaan ku shubnay hadda ayaan furnay hadda markii aad kood hore waxaan ugu diyaarsan default size of Photoshop ay leedahay marka qaybta rest hadii aan tagno business card iyo ID card ayaan ugu diyaarsan aniga ayaa ku diyaariyay marka qaabka lagu diyaarinayo isla arki doonaa insha Allah marka waxa loogu talagalay yani business card iyo ID card iyo Facebook cover iyo poster iyo waxyaalahaas yani wax kastoo u baahan tahay cabir kasto inaad halkan soo gashato si bari aadan yani ugu dhibtoono la bar cusub iyo cabir cusub aad soo jarin inaad halkan imaado safetka kadib aad ku dhufatid baasaas shaqadaada ay ku qabsato okay marka qaybtan photos waxa ku jira cabiro ay shirkadda ugu soo talgashay yani wixii photos markaas qaabkaas isticmaalayo laakiin anaga qaybtan ma qoseeyo ma baahanin qaybta bertiga diyaamaano waxa loo talgalay warqado yani wax kastoo daawacad qoseeyo يعني warqada bas ayaa ku diyaarsan laakiin wixii ka dhiman adiga cabiradooda qoran doono yani waa A4 iyo A5 waxyaalahaas warqada qaar ku diyaarsan ilaa B4 iyo waxyaalahaas ku jiro yani hadii aad u baahantahay oo ka isticmaal kartaa hadii aad u baahnayna cabir cusub aad sameysanaysaa qaybtan marka artiga illustration waxa loogu talagalay waxyaalaha posterska waxyaalaha yani aan daawacad qosayno oo screen-ka ah ayaa loogu talagalay sida halkaad ka aragtaan waa cabiradii square-ka ah posterski okay iyo qaabka yani wada jeedaan HD iyo 720 marka waa for screen wixii aad daawacad qosinin wasla qaybtan marka qaybtan waa web design-ka dadka web design-ka yani shaqadooda tahay qaybtan waa web developerska ama yani aan dhahay apps-ka yani dadka oo application-nada sameeya qaybtan waxa loogu talagalay muuqaalada iyo filmaanta waxyaalahaas يعني thumbnail-ka iyo iyo wixii adiga marka video qoseeyo wada jeedaan 4K iyo HD iyo waxyaalahaas ku jiro marka qaybtan adiga hadda anaga muhiim noo maahan okay marka anaga ahaan maxaa noqosay marka anaga 3 mid aan noqosay kaliya qaybta resinka ah oo cabir hore aan u sameeyay hadii aan marada u baahno inaan ka helno aan ka furano qaybtan safetka aan yani aan ka sameysan karno wixii aan save gareysanay halkan aan ku keedsanay hadii ay tahay business card iyo ID card iyo Facebook cover poster iyo waxyaalahaas okay wix markaas aan hore aan u save gareysan inaan inta dib ugu isticmaalno iyo hadii aan daawacad rabno qaybtan bertiga inta imaano warqadaha qaar aan ka doorano okay ama qaybtan midigta ah inaan toos u aadno intaan oo dhan waa ka maarantaa hadii cabirka markaas aad xifdsan tahay toos waxaad aadi kartaa qaybtan midigta ah qaybta marka waa preset details lahaa yani cabirada halkan ku jiro iyo wixii markaas waxa ka jiraysid ama waxa ku soo daraysid iyo cabir meesha aan ku jirno idilbo meesha laga save gareeyo waa qaybtan laga soo setting gareeyo laga soo fariisiyo cabiradeeda marka qaybtan ugu horeysa aan title-ka waxa loogu talagalay magaca shayga inaad ku qortid meesha ku xigto iyo halkan waa cabiradii balaac iyo dhererkii labada cabir intaada aadin ka hor waxa muhiim ah inaad tagto
aad kasoo dhigata cabirka markaas aad rabtid centimeter pixel inch okay cabirka markaas aad rabtid inaad kasoo dhigatid kabacdi cabiradii aad halkan aad ku qorato kadib jiif iyo joog wixii aad rabtid aad ka dhigato markaas qaybta orientationka waa warqadda inaad jiif ka dhigato ama aad joog ka dhigto okay cabir kasto waay marka haddii warqadaada qaabkan camal inay kugu jiifto aad rabtid waa jiifin kartaa halkan aad ka jiifinaysaa haddii aad joog rabtid joog ayaa ka dhigaysaa waa warqadda kuu soo bixi doonta ee hadda aad dooranaysid qaabka ay kugu soo bixi doonto waaye qaybtan artboardka ayadana ma quseyso laakiin dib ayaan ku ogaan doonaa qaybta resolutionka ah waxaa loogu talagalay quality-ga yacni uu yeelanayo warqadaada quality-ga yeelanaysa loogu talagalay inaad halkan aad ka saxato ama aad ka siyayso ama aad ka nusqaamiso qaybtan pixel inchigana ma quseydo cabirkeedaas ayaad ku dhaafi doontaa qaybtan kale maahan qaybtaas ayaad toos yani saas ayaad doonaysaa marka qaybta resolutionka waxaa loogu talagalay wixii screen ah in 72 ka dhigato wixii daawacadahana aad ka dhigato 300 daawacadda waa inay boor wixii ka yar waaye yani waa wixii boor ka yar okay laakiin markii boor waxyaaba sii gaarta ama cabir weyn uu gaaro halka waad dhimi doontaa insha allah 150 ilaa 72 waa ka dhigi kartaa okay qaybtan marka color mode-ka waxaa loogu talagalay colorska dib waan ka sharxi doonaa insha allah marka colorska aan u baahnaa anigu waa RGB iyo CMY okay RGB oo loogu talagalay wixii aan la daabicin for screen-ka ah marka aad leeyahay for screen waa wax yani aan la daabicin okay wixii daawacadahana 300 ay qaadanayaan haddii ay boorka yar yihiin marka qaybtan color mode-kan waxaa loogu talagalay RGB iyo CMY inaad ka isticmaashid intaan kale waa black and white nama qusayaan marka RGB waa wixii for screen ah qaybtan CMY-gan waxaa loogu talagalay wixii daabacad quseeyo okay waa colorski yani cyan magenta yellow qaybtan waa RGB waa red green black yani blue RGB dan waxaan dhahnay wixii screen ah kana waxaan dhahnay wixii daabacad quseeya okay marka qaybtan background contact waxaa loogu talagalay warqadda kuu soo bixi doonto markaad keliya daadid midabka ay ku soo bixayso hadda haddii halkaan aan fiirino halkan way caddahay warqadan way caddaan doontaa macnaa halka haddii ku caddaa warqad way caddaha macnaheeda haddii halkan ay madow ku tahay midab kalena halkaa midabka kugu yaalo ayay ku noqon doontaa warqadaadaas kuu soo bixi doonta cusub okay marka qaybta advancedka nama quseydo way ku xirnaa doontaa insha allah haddii aan marka safekan haddii wax ku save garayno hadda meeshaan magacaan kusoo qoranay for example okay warqada cusub aan kusoo qoranay intaan koobiyeyso meel kale ay ku afici doontaa right click dheh koobi dhaho marka inta cabiradii aan ku qoranay cabirada intaan qori ka hor waxaan dooranay cabirka nooca uu yahay kabacdi aan soo qoran labadana xisaab jiif iyo joog wixii aan ka rabnaa ka dhiganay resolutionka waan soo habeynay RGB iyo CMY waxaan ka rabnaa ka dhignay backgroundka caddaan aan ku dhaafanay create madhays markaan waxaad taabanaysaa falaartaas falaarta marka waxay quseedaa safeka waa qaybtan ayaa la shaqeysaa qaybtan safeka wax kastoo halkaan aad kasoo gelisid inta ay kuusoo geli doonaan hadda labadan ay noogu jirto warqadda cusub ayaan soo geli doonaa halkaan ku dhufo meeshaan safe-onka ay ku qoran tahay wixii warqaddii qoraalka haddii ay watay baasti kusoo dheh markaad baasti kusoo dhahdo warqadda cusub kadib safe ayaad dii doontaa markaa safe dhan automatic waa ujeedaa meeshan waxaa noo soo baxay warqad cusub labadan awal noogu jiray hadda waxaa noo soo baxay warqad kaleeto okay marka qaabkaas ayaa loo save gareeya haddii wax save gareynaysid yani aad save gareynaysid mid kale haddii aad sidoo kale u save gareyn kartaa halkan ku dhufo magacaan baasti ku dhaho kadib save dheh inta ayuu soo gali doonaa insha allah markii aad doorisid warqadda aragtay ama intaa ku dooritid ama intaa ku qortid kabacdi waxaad dhihi doontaa create halkaas wax kuusoo furmi doono warqadaadii hadda warqadeenu inoo soo furmatay sidaa ujeedaan marka waxaa imaanay qaybtii interface-ka ee photoshop-ka